xerada qoloji oo ay ku jiraan Soomaalidii ka soo barakacday deegaanka Oromada ayaa goor dhaweyd gaari jaad waday uu dad ku jiiray dhaawac iyo dhimasho way dhaceen Cawaale Cabdullaahi Ibrahim oo xerada qoloji ku sugan ayaa nooga waramay shirkaasi walaalo wuxuu saameyn u lahaa baabuurkan jaadlahaan baa ku soo baxsaday gabdho meel ka dhaansanaya foostooyin oo biyo taagan buu ku soo baxsaday wadadii buu ka soo baydhay marka 5 qof oo dumar uu maray 2 way dhinteen 3na waa dhaawac oo 2 waliba iyagu qoomay ku jiraan oo hadda isbitaalka Jigjiga joogaan referaalka foostooyinka gabdhuhu ay ka dhaansanayeen malaamida yiileen foostooyinku laamida way ku dhawaayeen oo meel macnaha jidka u laamida u dhoway ahayd ka bacdina waxay ahayd baabuurku waxa u baxsaday fareenka u baxsaday marka wadadii buu ka leexday dadkii buu marka foostooyinkii joogay buu jeeray foostooyinkii iyo dadkiiba uu isla jeeray marka waxa weeyaan 2 iyagu naftiiba mayna la dhuldhicin 2na waa sakaraad midna qaar ka dambay yuu ka jajabiyey marka adugu mid waa adu kulay 3 wax dhintay bay u eegyiin meesha laamida ee xerada qoloji ay ku garabtaalo waxaan dadku u yaqaanaan askari jiifa maleeyihiin inta badan caruuraha iyo shilalka inay xajidaan loogu talagalay waxa weeyaan kulay meelo ay leedahayna way jiraan inta badan waaga dhaweytoole baan hadda dhowr xabba ka samaynay intaan halkan soo degnayna shilalku aad bay noogu fara badan yihiin dadka meesha ku dhintayna aad buu badan yahay marka waxa weeyaan meeshan eega dadka uu ku jiiray askariga jiifa male laakiin meelo ka shisayso oo ku dhawo waxa weeyaan askariga jiifa aad baan ugu baahan macnaha uu ku yar yahay meeshan meel iyo 2 iyo 3 buu kaga yaalaa carruurta meesha joogtana aad bay u badan tahay dadka meesha joogana aad buu fara badan yahay ciyaalkiisa iyo marka askariga jiifa faraha badan male markuu baabuur badan ninkii ma la qabtay baabuurkii ma la qabtay ma la hayaa baabuurtii ninkii lahaa waa la qabtay adigu 6 qof ah baabuurka saaray 6 qof iyo baabuurkiiba waan qabanay xafiiska waxaan ku dhaweynay booliska la wareegay oo haya wahagaag Cawaale Cabdullaahi Ibrahim ayuu kaasi ahaa asagoo jooga xerada qoloji oo duleedka Jigjiga ah ayuu noo waramay Afrikada bari saacadu